sidee loola dhaqmaa qof kula dhaqmay adiga si xun, qof ku disrespect garayo? How do you deal with people that keep disrespecting you? ajaab shiqow maanta barnaamijkeeni taas buu ku egyahay. soo dhawaada waa idin leeyahay koob shaah soo qaata adeer macaan ayaa usoo fadhiista kusoo dhawaada barnaamijka oo maanta waxaan taabanaynaa waxyaalaha mataqaanaa sida dadka bini aadanka loola dhaqmo. qofkaas qofku rabo ha noqdo qof aan nolosha la wadaagtid adiga oo mar waliba ixtiraam daro kula dhaqmo, si xun kula dhaqmo. qofkan wuxuu noqon karaa saaxiibka, qofkan wuxuu noqon karaa qof aad nolosha la wadaagto, wuxuu noqon karaa adigu qof aad qaraabo tihiin, adigu qof noloshaada ku jiro. marka qofka markuu si xun kula dhaqmo bini aadanka seebaa loola dhaqmaa, maxaa adigu samaynaysaa? ya taas baan ka hadlaynaa. marka soo dhawaada waa idin leeyahay landheerayaal, haddaad channelka ku cusub tihiin sida landheernimo ku jirto subscribe-ka adeer macaan ha noogala baqiiline noo saar dhac. haddii aad tahay dadkii awalna taageeri jiray oo landheerayaashii awalbana taageeri jiray haddaad tahay landheerayaal soo dhawaada baan idin leeyahay si kaliya laab ah. videogan hadda aad daawanaysid adoo raalli ah waxaan ku leeyahay de like noo taabo, like ka taabo, comment ka soo bixi, share hataa hadii aad kusoo tuur qof adigu jeceshahay aragto inaad la wadaagto kale u dir. ya salaam. haddii aad noogu cusub tahayna soo dhawow, gacan kala arag baan kugu soo dhaweynaynaa. waa hagaag. marka barnaamijka aan galo hadda aan taataabano wax yar. qof aad la nooshahay, qof aad saaxiib tihiin, qof aad isqabtiin, qof qaraabo aad tihiin oo dee si xun kula dhaqmo, maxaa ka qaban lahayd? haddaba diyaar u noqo answer. waxaan ku siinayaa jawaab yacni kaliya laab ah oo weligaa aadan maqlin. adeer macaan qofka markuu ixtiraam daro kula dhaqmo waxaa anugu ku leeyahay iska indhatir, iska indhatir. yacni waxaa u samaysaa excuse badan u samay. qofka haddii adigu matalan uu shugaansi badan yaho kale, uu naag u arko kale, ama qof ay arkaan oo dhanba iska shugaansadaan adiga hortaadii ama gadaasha ama adigu meel weliba qofka saa kugu sameynaya maaragtay, iska dhaaf, iska indhatir. haddii markaa adigu qofka mataqaanaa wanaag badan tusid, wax badan aad sameysay oo adigu dadaal badan dhinacaada hadduu ka socdo, ya uu qofkii afartba ku siinaynin, ya koobka shaaha hataa kuu soo qabanaynin, iska dhaaf adigu, iska indhatir, iska indhatir. waxaad tiraahdaa maya waa iska dabeecad xun yahay qofkan, laakiin anugu haddaan jecel badan tuso, haddaan sabro, ya adeer macaan qofkaasuu la socdo, ama qofkaasuu iga guursaday, ama qofkaasuu saaxiib la yahay, ama qofka kale oo qaraabada yihiin uu iga jecel yahay, aniga mar waliba maadaama wanaag badan aan sameeyo, anigu mar waliba qalbigii wuu soo noqon doonaa. adigu iska sabar, saas isdheh. ya iska sabar, marka iska sabar. haddii hataa ninka matalan nin haddaa qabtid oo kale uu naaga badan yahay, naagahaas badan uu qabo waxba maaha, sababtoo ah mar unbuu adigu 60 sano kadibna ha noqotay mar unbuu dhihi doono wallaahi billah war qofta ya qoftaasoo kale maba heli kari ka war yo wax kasta aan ku sameynayay, si weliba aan u xumeynayay, wax iyadoo kale maba arkinba buu dhihi doonaa. adigu ya hopeska, don't give up the hope. saa ku soco. you see how that stupid u tahay? that sounds really dumb. advice-ka noocaas oo kale hadda waa la yaabanta. waxaa laada warnaagta maxaa ka qasan, maxay tahay qof dhan oo si xun kula dhaqmaya ayna leeda anaga u sabar iho, iska indhatir, u dulqaado. ya waxa noocaas oo kale aqligalba ma ahane. sidee bay meesha intay usoo fadhiisato inoo leedahay baa is leedihiin soo maahan? of course waa is leedihiin, sababtoo ah de qof aqli qabo oo damiir qabo baa tahay. ya adeer macaan. marka at the same time adoo aqli qabto but sometimes qof aad jeceshahay markuu ku xumeeyo, ya uu si xun kula dhaqmo, waa iska indhatiraysaa.
saaxiibtaa baa wacaysaa ama saaxiibkaa baa wacaysaa qofkaan saan buu yeelay waa jeclahay aniga maxaan sameeyaa bal advice isiiya ya bal ila taliya maxaan sameeyaa talo ma gurigaan bedelaa ma dharkaan bedelaa ma anaa isbedelo ya ma waxaan kan baan sameeya qofkaan anugu aan dadaalkaa badan u sameynayo muxuu ii fahmi waayey ya aniga waxay ga qaldan yihiin baa islaahay waxaa saa isku leedahayna ma aha macnaha aqli ma qabtid adeer waxa weeyaan emotionally baa invested qofkii ku noqotay emotionskaadi baa kaa xoog batay aqligii marka ma isticmaalaysid adigoo arkayso dulmi inaa lagugu sameynayo relationshipka oo wife and husbandka kali maanaanu any relationship baan ka hadlayaa haddaad you siblings ha noqdaan walaalaha ha noqdaan maxaan ku dhaha familkaadii ha noqdaan saaxiibadaadii ha noqdaan qofa maaragtaa dee isla xiriirtiin oo xiriir idinka dhexeeyo relationshipku rababa ha noqdo qofka bini aadamka marba hadduu kugu xaqgudbo haddii ma aragta wanaaga adiga aad siinaysid uuna kuu soo celinin maxaan ku dhaha jaceylka aad tusaysid uuna kuu soo celinin isagiina uu ku tusaynin marna ha isdhihin uu dabeecad xun yahay iyo marbuu isbedeli doonaa iyo waa iska sabrayaa iyo bal advice baa weydiinayaa bal maxaan sameeyaa bal ii sheega ha isdhihin because qofkaasi ma bedelayo adigina meesha waa ku dhex dhimatay basically waxa weeyaan waa adigiyo mataqaana qof bad ku jiro ya oo jiraan gareynayo badii biyaha ma aragtay adiga adoo weliba taqaano si fiican oo dabahalka taqaana hataa still dadka waxaa lagu leeyahay qofka markuu jiraan gareynayo badda ku jiro oo biyaha ma aragta hoos qofkii they panicking there haddaa adigu istiraadid bal qofkan baan badbaadinayaa bal aan ka soo qabto qofkii they're gonna drown you with them. That's why lifeguard waxaa lagu leeyahay qof professional ah oo loogu talagalay waxaan inuu mataqaana dadka badbaadiyo marka sometimes anaga waxaan islaynaa dadka badanaa weliba dumarka weeyaan dumarka waxaan sameeyo badanaa ragga no not too much because ayaga waxa weeyaan emotionskooda badanaa ma qaato maskaxda mar weliba ay ku socda anaga laakiin waxaan nahay dumar haddaan nahay emotionskeena naga xoog badan marka qofkii markaan jecel laho kaayna waa iska nitiraynaa xumaatadu uu nagu sameynayo adigii baa la drown gareynayo adigii baa maxaa noqonaysaa depleted adigii baa energygaadi kaa tegiyo adigii baa mataqaana waxyaalihii ay qabsan lahayd oo dhan meel baa iska dhigaysaa and you become a person qof oon isgaranayninba you don't even know who you are anymore because maanta oo dhan waxaa ku dhex jirtaa qofkan ooba kuu soo jeedin saa usoo jeedan lahayd you're putting in so much effort more than what you're supposed to waa adigii oo mataqaana you're just pouring love after love koobka waxa weeyaan shaaha markuu biyaha shaaha ka dhamaado haddaadan shaaha kale ku shubin intee waxba kuuma jiro meesha but you pouring everything that's in you to this person qofkaana kuma arkayo midda kale the more adiga aad istiraado wanaag samey the more aad tiraadi sabr the more disrespect uu qofku kugu sameeyo because wuxuuba ku arkaya qof dhaadhaan inaad tahay ruuxan qofkan damiirka lahayn oo wax kasta ku sameynay the more aad sii adkaysatay the more qofku marka uu kugu xaq gudbayo more and more that's just human nature they don't know waxa ma aragta value-ga wixii ay markaasi haystaan ya nicmaday ku jiraan waxay haystaan ma garanayaan laakiin marka adigu aad tiraahdo no saaxib so sorry I don't care inta jacayl aan kugu qabo I love myself more than you adiga haddaa ila fahmi weyso wanaagan iyo waxaan aan kuu sameynayo iyo intaan effort aan gelinayo haddaa garan weysay aad sameyn weysa ma aragtay qof kalaa sameynayo ama anigaaba isku sameynaya intaa love-ka adigu ku sii lahay jacaylkaas ku sii lahay anaa nafteeda isgelinayo okay no means no marka disrespect-ka dadka kuula diilgarayo you just basically cut them off you don't have to inaa ugu sameynayo ixtiraam daro kula dhaqmayo ku naxariisanayna inaa adigu naxariis badan tusiyo why 9 bilood baa qofka lagu dhalay adigana 9 bilood baa lagu dhalay so sometimes our own needs waxaanaga u baahannahay baa meel dhignaa for other people qofkan anybody ha noqdo you gotta put yourself first because at the end of the day qof waliba they're thinking about themselves qof adigu kaa fikiraya mala qof adigu waxa dantaada kugu jirto dhahayo okay aan u sameeyo ma jiro I don't care qofka uu yahay everyone is out there for themselves
So you gotta say, hey, I am priority number one. You know, I am priority number one. Marka asxaabay barnaamijka noocaan oo kale haddaa ka heshiin waa soo badinaya anugu commentka igu qora waxaan hadda aan maarta soo dhigay bal fikradiina baan rabaa inaa ila wadaagtiin anugu ma ila agrigaraysan qofka markuu disrespect kula dhaqmo markuu jaceylku dusaynin markuu adigu wanaaga aad samaynaysid uu samaynaynin in aadan u sabrin because sabr waxaa jira la sabro looma sabri karo qof repeatedly wax kugu sameynaya disrespect oo adiga maarta caafimaadkaaga u fiicnaan marka do you agree with me misa waxaa leedahay maya iska indhatar oo saa ku socda oo iska adigu yaa u dulqaado bal aan maqlo fikirkiina taladiina commentka dhac igu soo siiya adeerbaan barnaamijka waa soo badinayaa waxaan idinka codsanayaa videogan like saara comment ka tuura subscribe igu tuuraya haddaadan subscribe ii ahaan asxaabtaadina la wadaag adeerbaan waa ogahay dadka badanaa youtube-ka subscribe-ka iisoo saara adeerbaan waa caruurtan iyada u ahay from TikTok waa idin jeclahay mar waliba waxaad tihiin dee caruurtii iyada u ahay ayayana si wanaagsan baa u habaysiin marka ii kala kiciyo youtube-ka waqti badan baan gelinayaa waa soo galayaa dhaca adugu waxyaalo badan oo ay nooc baan soo tuuraya adeer macaan yaa marka waa mahadsantihiin until next time adeeryaal yaa waan idin salaamay anoo saan ah iyo anoo saas ah iyo yaa salaam warqad xijaabka waaba ka helay soo qurux kumeeyey cajaa'ib shiiqow waan idin salaamay salaam alla idinku taalo dee waa kaa subscribe like wax waliba dhaca ku siiya idiima sheegaya dee laan dheeraad tihiine